We are now escorting His Excellency, the President-elect, to take the oath of office, and we're escorting him to the podium. بسم الله الرحمن الرحيم anigoo Cabdulaahi Yuusuf Axmed Cabdulaahi Yuusuf Axmed loona doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya layna doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa igu wallaahiya iga billaahiya igu tallaahiya waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan u guto xilkayga u guto sida daacadnimo ah oo danta dalka iyo diinta oo waafaqsan sharciga iyo diinta islaamka iyo danta dadkaba waan u adeego dalka iyo dadka Soomaaliya kuna jirto dhowrana oo si buuxda u dhowra axdiga Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya وبالله التوفيق.
walaalayaal waxaynu soo marray 14 sannadood oo burbur dagaal dhiig daata qaxooti iyo shidaynu ku jiray mudada dheer wixii ina gaaray waa ogsoonahay waana ka xunnahay Soomaalidu waxay tiraahdaa tagtadaayo timaado u tooghay waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalka ka fakaro mustaqbalka Soomaaliya iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed inaynu ka fakarraa loo baahan yahay haddaynu baarlamaankiina doorannay madaxdiisiina doorannay madaxweynena doorannay shirkii weli inooma dhammaan oo dhismihii inooma dhammaane hawl badan baa inoo harsan waxaa inoo harsan inaynu xukuumaddii dhisnaa laamihii kale oo dawladdana inaynu dhisnaa inoo dhiman markaynu dhisnana waxaan u malinayaa hawltii hore ka culus oo runtii loo baahan yahay inaynu dawlad iyo baarlamaan iyo shacab isugu tagno si aan Soomaaliya u soo celinno qarannimadii ka burburtay iyo sharafteedii baa ina hortaal waxaynu wada ogsoonahay in loo baahan yahay inaynu qarankeenni dib u soo dhisno hawlaha ina hor yaalna waxa ugu horeeya waa dhismaha qaranka heerka ugu sarreeya oo baarlamaanka ah ilaa meesha ugu hooseysa oo ah gobollada iyo degmooyinka iyo dawlad goboleedyada dhisan iyo kuwa dhismi doona inaynu dhammaystirno ayaa loo baahan yahay waayo qaranku wuxuu u baahan yahay madaxdii hoggaamin lahayd muddada ku-meelgaarka ah ee 5 sannadood ah in la dhisaa waxaana inala gudboon si aynu wakhtiga adag uga gudubno xukuumadda aynu dhisaynaa inay noqoto mid karti leh oo fulin karta dhibaatooyinka badan oo Soomaaliya haysta sidii looga gudbi lahaa fulin karta baa loo baahan yahay inaynu dhisno waxaa loo baahan yahay inaynu jamhuuriyaddii Soomaaliya midnimadeedii soo celinno waxaa loo baahan yahay inaynu nabad horseedno hadda waxaa la yidhaahdaa fulay xanti ma mooga dadkiina badan ee kor fadhiya ee Soomaaliyeed waa ogahay waxay ugu xamataan oo anigu waa ogahay oo waa la socdaa waxaad ii taqaaniin أنا مركان ويدين شيء وحدي تقانين نندقال runtii ma tahay horta misaaniga mooday inay sidaa tahay maanta wixii laga bilaabo awal waxaan ahaaba maanta wixii laga bilaabo waxaad igu talagalaysaa nin nabadeed oo diyaar u ah inuu ummadda Soomaaliyeed intay isa saabaxdo anigaad horta isaabaxaysaan dhammaantiina intay isa saabaxdo inuu meel isugu keeno qarannimadeediina dib u soo yagleelo oo horseed idinku noqdaad iigu talagelaysaan mar haddaynu hawshaas gelayno waxaan jeclahay inaan dul maro dhibaatooyinka culus oo ina hor yaal ee loo baahan yahay inaynu si degdega wax uga qabanno dhibaatada ugu culus ee ina hortaal waxa weeye waa abni darro iyo nabadgelyo la'aan waxaana loo baahan yahay waddanka inaynu nabad ku soo celinno waaynu runtii qof waliba naftiisa uu ku talagalo inuu nabad ku seexanayo isagoo oo dadka kale walaalihiisa gacmaha haystana inuu mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka ummadeenna wax ka dhisi doono. amniga aynu u baahannahay wuxuu u baahan yahay
وأن شعلهي إن الأوغيسي دلالك إيغاد يدلالك كلا AU يا أدوينها به إن إنه هنهي سينو نبدا وحصلينه وهب كيستغدغنو وإنت إسسابحنا قعماها يسوق بسنه من نبدي يشريتانكي أمدنا أسر نورينه وحينو باهنهي عيدا AU يعدي كلو ديارنا والله أي إنو كيناني أبنغين الله إلاني وحان كلاو باهنهي إيغاد يا AU يا قرمدا مدوبي يا ururada kale ee aynu ka tirsannahay sida Arab League inay inoo suura galiyaan inaynu dib u dhisno ciidan abni ee Soomaaliyeed oo nabad hanan kara oo ka kooban boolis iyo military ciidankaas oo ciidanka kale ee aynu adduunweynaha ka sugayno ay iskaashan doonaan hubkana inay ka dhigi doonaan waayo danteena ku jirta dantu waxay ku jirtana waa lagu talaabsadaa ee laga marbaqo waxaan kale u baahanahay si nabad loo helo hubka dhigistiisu kaligeed waafi maaha waxaynu ognahay dalkeenu wax badan inuu qasnaa dad badan oo qas ka shaqeeya inay jiraanna waa ognahay anuu aan haatan qof shakhsiya waxba ka sheegayn laakiin beladii aad qarsataa waa ku dishaabaa la yidhi oo waa ku qarsataaye runta inaynu sheegno weeye dad shiddo ka shaqeeya dalka jooga waxaynu u baahannahay wixii nabadgelyadeenna waxyeelaya magacay doonaan ha yeesheene inaynu ka hor tagno oo haddii aan walaalayaaluna daayaan leenahay haddayna dayn waayaan inaynu iska qabannaa waayo jiritaankeenna khatar gelaya haddaynaan iska qabanno markaynu nabadgelyada ka shaqaynayno waxa muhiimka ah oo hubka dhigista la yiraahdo dee hubka dad baa watay dadkii watay oo hubka haystay waxay u badnaayeen miliishiya qoliyo kalena waa jiraan magacooda haatan halka ka sheegi mayee oo iyagu laftigooda sidii urura u dhisan waxaa loo baahan yahay hubka markii laga dhigo iyaga laftigoodu Soomaali bay ka dhasheen oo Soomaali weeye inaan suuqa lagu sii dayn in shaqada markii hubkii ay iska dhigaan in dhaqan celin loo sameeyo la jiheeyo amal ay ku shaqaystaan la baro bulshada ay ka mid noqdaan markaan ka hadlo arrinta la xiriirta dib u heshiisiinta waxaynu u baahannahay walaalayaal dagaalkaynu soo marray ee sokeeye anigu wax badan baan dagaal ku jiray markaan maanta runta caddeeyo dagaalka hubaysan raggii bilaabay madax baanu ahaa 25 sano ka hor jabhaddii ugu horreysay oo hubka qaaday baan madax u ahaa xabadi waxay tahay waa aqaan xabadi waxay tahay ninkii oo dagaal yaqaan baan nabadda qadariya oo macaankeeda yaqaan waxaa loo baahan yahay waxaa la yiraahdaa nabadii wiil bay cuntaay wiil kuma dhasho waxaa loo baahan yahay inaynu nabadda u guntanno dadweynaheena Soomaaliyeed ee islaayay ayaan darro isagoo walaala ah oo isku reer ah anigu haatan qaran oran maye kulligeen oo dhan waxaynu nahay qoys baynu nahay isku af baynu nahay isku diin baynu nahay isku dhaqan iyo isku culture baynu nahay inagoo sidaasaynu haddana islaynay waxaa loo baahan yahay inaynu ummadeenni meel isugu keenno oo dib u heshiisiin u samayno oo inta la isasaabaxo wixii la soo dhaafay la iska ilaawo sida gobolaan ka imid laga yiraahdana wixii horay u dhacay xaladhalay in laga noqdo waxay la tahay dhammaanteen waa ognahay midnimada Soomaaliya inay inoo tahay shay lama huraana oo muqaddis ah marka dib u heshiisiinta haddii waxaan ku darayaa walaalaheen waqooyiga Soomaaliya oo iyagu la baxay Somaliland dad walaalaheena weeye dad runtii aan aad kolley anigu nin baan ahay idinkana waa filayaa aan uga xanuunsanayo wixii dhibaato hore u gaaray weeye waxaa loo baahan yahay dawladdu markii xukuumaddu markii la dhiso
wada xaajood nabadeed iyo sidii loo soo celin lahaa midnimada ummadda Soomaaliyeed in lagu soo dabaalo arrintooda waana xaraan mana suura gelayso xabad dambe inaynu ridno aan xabad ula tagno oo la dagaalano walaalaha walaalayaal dalkeenu waa burburay waxaan oran karaa wax caawa ka nooli ma jiraan wixii infrastructure ahaa iyo wixii magaalooyin ahaa iyo waxaynu horay u qabanay oo ku soo tacabnay iyo wixii ila dhaqaalaha waa burbureen waxaynu u guntanaynaa inaynu dib u dhis inaynu gallo muddo dheer ina ka qaadan doono waayo dalku waxba kuma noola laakiin inaynu dib u dhis gallo lama huraan weeye haddii kale qarannimadeennu taabagal noqon mayso arrimahan kor ka sheegay oo ah dhismaha qaranka oo ah arrimaha amniga oo ah arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska inoo socon mayaan oo dawladdeenu dhisannaa keligeed kuma filla waxaan markaa sidaa darteed rajaynaynaa adduun weynaha oo dhammi inuu inoo soo gurmado oo gacan buuxda ina siiyo sidii aynu jamhuuriyadda Soomaaliya uga dhigi lahayn waxay ahaan jirtay jamhuuriyad xora gobolkan wax ka degan walaalaha kale ee gobolka inala deganaa iyadoo la siman wax la qabsata ay wada shaqeeyaan isna kaashadaan Soomaaliya intay xor noqotay anigu hanaqaad baan ahayo waa joogay haatan yar maahi 44 sano ka hor waa joogay oo sarkaal ciidamada ahaa 44 sano gudahooda waxa ka dhacay gobolkeena waa ka warqabaa waxaan rajaynayaa gobolkaani xasilooni waarta inuu helaa inuu gacmaha isqabsadaa inaan walaalaha kale aynu dariska nahay ee gobolkeena la jooga innagoo mid ah ka wada shaqaynaa mustaqbalka gobolka iyo amniga adduun weynaha intaba waxaan jeclahay haddaad ii saabaxdaan inaan ku celiyo waxaan hore u yidhi Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadalka haddaad doonayso in la fahmo ama waa lagu dheeraystaa amba waa lagu celceliyaa waxaan jeclahay inaan dalalka Afrika iyo adduun weynaha oo dhan anoo wakiil idinka aan codsi u soo jeediyo inay isla keen garab taagaan ciidan abni dhaqaale dawladda ku shaqayso iyo aqoonsi diblomaatiga ilaa haddaan layna aqoonsanayn markaa sidii waxaan jirin oo kale aynu nahay dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa codsiga ah wixii maanta ka bilowda walaalayaal waxaa laynaga doonayaa qarankeennii inaynu dib u dhisnaa qarankuna wuxuu inoo dhismayaa dawladda aynu haatan dhisayno yagleelayno dadweynuhu hadduu la shaqeeyo oo inta hubka iska tiiriyo iska dhigo gacan buuxda ku siiyo waxqabadkii dawladda si dalka aynu uga sabata bixinno burburka iyo dhibaatada waxaan idinka codsanayaa inaad iska ilowdaan waxaad hore u soo marteen wixii idinkala gaaray waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaynu innagoo wada soconna aynu soo afjaraa dhibaatada ina ka dhex dhacday ee muddo dheer jirtay waxaan xusuusnahay hadda anoo xabsi fadhiya heesaan dhegaysan jiray anoo xabsi fadhiya heesaan dhegaysan jiray fanaaniintii raadiyo muqdisho waxay oran jireen dumar iyo ragba ina soo dareershay oran jireen marka aan u dareerno nabad walaalnimo saabaxaad iyo qarannimadii Soomaaliyeed sidaynu u soo noolayn lahayn waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa waxaan filayaa berri waasoon walaalayaal waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim waana mahadsantiin